محل لو كتشيدي تاس لين ما دعضو لبا ويلش ولالي marka la eego Soomaalida wallahi horta runtii xiseen oo deesan ka war hayno inagu markaan dhalnaa fanaanin ahaan markaan anagu wax jilayno hadii jeer markaan aan ujeedada soo sameeyay ka abwaanka isaga garanay waxa uu uga jeedo ama arinta nooc uga hadlayo laakiin qisada markaa uu anaga noogu sheegay saasaan uga jeedaa waxa sal doonaya maxay dhigay ay ka hadasho riwaayad tuu un baan anagu dad u qaadanaa si markuu socodsiin laakiin waxa laga yaabaa aragtida dadku hadhowto inta isbedesho in la bedelo magacii iyo wixii oo dhan badabad kale laga dhigo isagu laakiin si noogu sheegay riwaayad Axmed Salaam Daal Hasan ku sheegay oo maxay isaga halabuurkeeda iyo laha heeseedaba waxaan yidhi waa laba nin oo walaalaha oo markaa gabadh kala qaadaya ma fahanti dee habeeliga qaabilba waynu maqlaynay walaashood maxay ay kala dhaceen marka noocaas oo kale uu anaga noo tusay sidii baan nagu u dhignay ku tushay adiga tiraabtaas oo kale ma kugu dhacday midaan heesad leedo qaabkii aad u sameysay ama aad u fahamsanayda qaab aan ahayn loo dhigo oo isaga qaada kamid ma jirto runtii hees aan waliba anigu markii hore lahayn oo aniga koobiga ahayd dad badan baa mid iska jeclaystay imka heesaan lahayn inta soo qaadan yiraahdo aniga lahaa ayaa ay kamid ahayd waxa ahayd heesta la yiraahdo mageel ba kugu dhalay heesta waxa iska lahay Allah yarxamay fanaanka Yaasiin Axmed Dilfeer midheedana waxa lahaa soo aniga igu sheegay Maxamuud Firin la yiraahdo oo maxay reerjiga marka runtii saaxiib baan ahay anagu maxay ahayd fanaanka ilaahay naxariistay maalmaha kamid ah isagoo heesta codeeyay markaa soo qaadaya ayaan soo fariistay dabadna waan isweydiino waxaan ku yiri Axmed oo heestan maxay ahayd Yaasiin dabadna wuxuu yiri heestan waxa iska lahayn noocaas way macaan tahay ka waran buu yiri dabadna codkeeda wallahi aad buu macaan qaad buu yiri imka laga bilaabo maxay dareeyay heestas waxay ahaydeen hayo inteenan maxay ahayd noocay maxay u dhigmaysaynaan maxay soo bixin maxay aamaynaan soo bandhigin dadka iyaga laftigooda fasirtay heestu waxay ku saabsaneed sidoo anigu ii sheegay waliba day maxay ahayd marka aan isweydiinay Allah yarxamay fanaanka wuxuu ugu yiri gabadh buu ninkan guursaday gabadhu waxay nala joogtay marka isku koox baan hayno kooxda la yiraahdo Ilaysbaan ee marka kiilka shanaad laga sameeyay ayay kamid ahayd isaguna abwaan buu ahaa dabeedna gabadhu markay muddo joogtay fasax qaadan jirtay hadii jeer reerkooda waxay deganayeen marka meel gibla la yiraahdo oo u dhow jigjiga dabeedna dhowr jeer buu malaha kala hadlo ku yiri maxaad waad sii socotaa una maad iska joogtay dabeedna malaha dhig buu dhigwiido dabeedna wuxuu yimid Yaasiin wuxuu ku yiri waxaan doonayaa midho fara badan markaas oo isagu sidii gabay ahaan ugu talgalay buu sameeyay kabacdi wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan hees ka sameeyo Yaasiin baa markaa intan kala soo baxay sidoo ii sheegay isagaana hees ka sameeyay oo heestan ay markaa noqotay waayahay waxa filay horta inuu imka uga hadalay way inuu yar far badan isaabad muddo laakiin ujeedadeedu kooraskii ku dhantahay heesta waayo waxay ahayd kooraskeeda wuxuu ahaa dardaarankii waad giftay adoo fasax gaaban tagay maxaa gibla kaaga xidhan mageel baa kuugu dhalay marka kelmadda mageel baa kuugu dhalay iyo gibladaas dadku waxay ka dhigeen aniguna markaa waxaan deganaa xaafadda gidgubla la yiraahdo inaan anigu gabadheeda u sameeyay heesta oo aan leeyahay maxaa goble kaaga xidhan marka maxaa loo bedelay waxa loo bedelay saan ku sheegay goble oo xaafadan markaa aan gali jiray anigu imika baan deganay goble Hargeysa marka waxa la yiraahdaa gabadhiisa heesta u sameeyo waxaba dhacday marka xilliga laftigiisa ma rabo inaan Xuseen hees jawaab laga sameeyo laga jawaabiyo heesta oo gabadh loo dhiibay dabadna jawaabtii anigu waan maqlay wax sabaxay ma noqon oo suuqa kale waayo qofka xitaa sameeyay marka midhaha in la yiri ka sameeyo heesta ayaan soo quliso qof waxaan ba fahansanahay marka may bixin laakiin way dhacday saasoo qaldan baan moodahay naam عابي فنانينتا كواوين
مثلا أتصور حسطي محمد سليمان محمد أحمد حسن آدم أحمد نوبي محمد نوبي فنانين تاعان كا حبلها سيدوكله يلا قلت عشاء والله هرترنتي حسين وتاسوا سؤال يار أدغو هذا يصير واحد مدة مركز ليلة فنان كيف أدغو تعشى إلى السكة لابو أركان السلام قف كاسدة شخصية بملكة قف كملها ودونية لكن أنا فنانة ما كانت تعلي وحن تعلها لكن وهرتي أنا هذا حسيا إن هي سودة أو فنان واللي بوجد وليها وكاسة فنان واللي من عد بوليها يسقو كار واه ويسقو ودي إلهي سيوك تاسدوا هيبد ودتك كله وهيدا كجد وين هي مركا أنا وهي سأهان وما كنت على هاي فنانين لكن سودا كله دي برشة إيه ولا المدو وماشي ده وكل بدتك كلام ونسكح بنا ودم مرة بعد الفنك نقطه حق فنك شيء يعني حق فنك رنتي عدد كود حيسي هو عن رنتي عدد حيسي وحكم ذا سام كل شيء محمد سلمان محمد موجي أحمد موجي لها ونحرسته وأنتي واللي بقى المدود شغلين هذا الإمارات كوا إن بدنا واللي برجع يجلت لي فنك أو حاجة شيء كم ذا محمد أحمد الله يرحمه اللي تيم كول ورنتي محمد يوسف عبد رجع رنتي جلت لي شيء اللي عفنك واللي بيجي وحقبت كي يجي قابك عن ديمقراط فنان مكرو كم ذا مروق عداك فنك نعم حسن هذا نيروتش بالله يرادو عبد التهليل ورنتي سوي بهيسيس أن أنت بدن إن قاضي وجعلان شري ويفرق بدين في تمسك كرو لكن أنا قفراني توي ما كانت جوالين ترى بدن هذا وجعله وهي عابي هي صاحبة تريد متقنة انتقاد قياسهان والله ما كان حقيقة كشيء حسين وكلي intaan hubo ilaa 40 way gaareen marka ma sii wadaysaa fanka maxaa himiladaadu tahay ma ka haraysaa maxaad ku soo kordhinaysaa doonaysaa inaad ku horumariso fanka suugaanta wax ku jira ray aad dabacsan tahay way jirtaa waliba su'aal aad u wanaagsan weeyaan aan jeclahay in la weydiiyo waan rabaa inaan sii wato horta runtii fankayga oo ilaa imika dee wax maanta igu hor joogsada ama dee odhan kara waad gaadhay levelkii fanka laga gaadhi jiray caabuga ka joogana ma jiraan wax isbedelo ama codkayga ama maxay ahayd dee fankayga maxay ahayd dee hoos u dhigi karo aan soron karo maanta dee hoos buu ku dhigayaa runtii aniga ima muuqdaan haddii dadku aad arkaysaan waa odhan kartaan ma filaya dee ka joog laakiin waxaan jeclaan lahaa runtii in wax isbedel fara badan aan ku sameeyo anigu markaad shakhsiyan weydiiso dhinaca fanka waayo fanku bergi hore wuxuu inoogu salaysanaan jiray dee meel baynu lahaan jiray fanaaniintu meel bay lahaan jireen base baa jiray hoosoo laga soo bilaabi jiray dee guriga haddaad tirado saqaf baan saaraya isagoo aan maxay ahayd aanad soo dhisin gidaarkii dee ma saari kartid baa cidla taasna waxa u ahayd waxay tiyaatar baa jiray ay fanaaniintu kasoo bilaabi jireen fankooda oo kuwa aynu kasoo sheekeynay maxamed salmaan maxamed axmed maxamed mooge maxay ahayd xasan aadan dhul baa dee dariiq baa jiray soo mari jireen oo dariiqaas wuxuu ahaa dee hirgelinta heesaha ku soo bixi jireen taana waxa ka soo saari jirtay tiyaatar baa jiro dabadna inta la isugu yimaado heesaha laga qabto waxay heesayaan baa loo yeeri jiray fanaanka muuqaalkiisa codkiisa qaab masraxeedkiisa wax badan baa jiray doo fanaaniintu ay markaa ku iman jireen masraxyada imika waxaad moodaa wixii oo dhan ma jiraan dee inay yaro 8 cajirood oo siiliyo jeeb ku sitaa masrax isugu imanaysaano dabadna markaas la goranaya waar cabi iska yar joog bal kana noo geliyay marka waxaad moodaa wax badan inay lumeen anigu ma caayo runtii ma lihido way maxay dee waa ceeb inay waxa sameeyaan iyaga shakhsiyan bay ceeb ku tahay laakiin oo dee dadku inay runta u sheegaan oo yiraahdaan waxaan ma lihidina dad bay ku satarcay iska lahaay waxa leedahay bay idinka wanaagsan anigu waan kula taliyay runtii in badan inay heesa ay leeyihiin soo samaystaan dee heesiyo laba ninka la yimaada maanta uu magac bay u noqonaysaa walaalaha koobiga marka ma waxaan doonayaa bataa lafteeda anigu aan rabaa inaan ka bilaabo bana wixii dib u soo celino waayo imika dad fara badan oo dhalinyaro ah oo codad macaan baa jira oo runtii aad cod wanaagsan oo rag iyo dumar bale laakiin problemkii waxa weeyaan Xuseen oo de meel ay soo taagaan oo wixii maanta inta lagaga qabto la yiraahdo waxa wad ku macaan tahay ma haystaan marka bal horta in dadaal loo sameeyo dawladda iyo shicibkuba oo tiyaatarkii wadanka uu lahaan jiray imika gacanta badal lagu hayaa in badan kastan maqlayn maxay haydeen aan wali dhameystirmeen lagu dadaalo horta tiyaatarka loo sameeyo wadanka markaas la ogaan karaa wixii fanaaniin ee soo bixi karaan maxay la heli karaa wixii harayay de aan maxay haday markood hore waxaan baday ay shaqo ku lahaynay maxay ka har karaa marka anigu waxyaabahan ku rajo weynaay imika
doonaya inaan ugu soo jiro fanka waxaa ka mid ah tiyaatarka in la sameeyo dad fanaaniin oo yaroo fara badan oo anigu aan arkay joogana in gacanta la soo qabto oo lagu soo daro fanka lagana joojiyo waxaan koobiga qaadaya ee gidaar walba soo taagayay dacajada jeebista ma jiraan cid caabi tafiirtaada ama dashay oo ku soo barbaarisay fanka maya xisaan oo saad koonayso anigu inta badan gabadh baan muddo badan joogno gabadha xoogay ma dhalin marka ilmaha maxay tahay gabadh baan dhawaan guursaday laba carruur oo weyn waxay ka joogaa weli demay meel may soo gaadhin laakiin taas mustaqbalka dambe waxay noqon doonto ma garanayno fanaaniinta dhalinyarada daadii dhexe waxaad ka mid tahay fanaaniinta ugu xaragada badan amaba ugu jirisqaadka fiican markay ka hadlayaan bulshadu laakiin caabi koofiyadda maxaad rogtay xisaan su'aashaas in badan baan horta isweydiiyay rag badan koofiyadda waxaan si kale uma roginay waan iska caadiystay inaan sana xidho anigu bay dabeecadiga noqotay waayo inta badan waxaan u nisraada haddaad sidan soo tiraado xagga hore inta badan wejigaaga dadku arki maayaan marka anigu ba dabeecad ka dhigtay si adiga waxba arkay may haddana waxba arkay inta sabab uma xidheen harba ii noqon lahayd dabadna markaas soo raasay waxaad kala anigu ba dabeecadiga noqotay dad baa jira ka cabsooda koofiyadda markay inta fooshadaa hore soo baxdo inayna waxba arkay wax ku soo socdo xilli baa jirtay aan koofiyad baqaadin jirin waxa ka mid ah ragii su'aasha ay weydiiyo marka aan tiyaatarka dhexdiisa ku qabanay qadar fadxa kulli waxaan xidhan jiray muraayad ayar ku bedelay marka koofiyadda dadna muraayadda halkaas aan jiray runtiina haddaan adiga xaqiiqa ku sheeganayo baashan bidaarta baan yar leeyahay oo bir goormaan la jirin kowdi dadna waxaan sir bal dadku saan u yar dilay min baashi inay si yar go'ayso xoogaa ka yar qar intaas Soomaali xidhaa dabadna wajigu man diidaan haydaan iska dido leeyahay waaye intaas Soomaali xidhaa iska le wax kale fursadan yaan salaanka gaarsiina walaal waxaan jeclahay runtii doorta in badan baan ka maqnaa media oo aniga qudheedu ma soo fadhiisan hay'addiis sidan oo kale oo kaftan intan la eg runtii ma baan kaftamin muddo imka ilaa 5 sanadood gaarisa sidii maxay tahay dhaawacay ugu dhacayna runtii waan ka yar qabsaday dhinaca media oo dee adiga xitaa markaan ka soo qaato Soomaaliya xiseen ahaan in badan baan maxay tahay inaan is arago inaan is soo fariisan marka cid ala cid horta codkayga garanaysa inta heesayga jecel inta maxay tahay media oo dhan waan salaamaya ummadda Soomaaliland sawirantay waan Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed oo runtii wadcigeedu imika aad u xun yahay oo aynu arkayno de waxa maxay dhibaato ka taagan ama maxay xiriirka haysta waan salaamayaa waxaan u ducaynayaa Ilaahay nabadgeliyo uu siiyo taama colaadan Ilaahay ka joojiyo waan salaamayaa maxay waalidkay hooyaday xaaskayga caruurtayda walaalahay iyo dhammaanba inta fanaaniinta af Soomaaliga ku heestaan meel kasta joogaanba waan salaamayaa wayahay daawadayaashuna wayna sugayaan heesteebad ugu jeceshahay oo aan ku dhaafnaa waxaan ku dhaafaynaa sida aynu isla soo qaadnay maadaama aynu markii hore ku bilownay bal in badan bay dadku heesaa maxay ama daawadayaasha ay heesa kale oo dhextaala ama kuwa dambe cusub ay arkayeen heesta igu horeysay aan ku sheegay aan ku leeyahay aniga codka u sameeyay ayaan jecelahay bal inaan ku soo dhaweeyo dadka la daawadaan insha Allah jigjiga ka hor jigjiga iyada qudheedu ma xumaa wayahay daawadayaal intaas ayaan ku soo khatimaynaa barnaamijka madasha alabuurka idilkiin waxaan ku dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
jacaylkuye anuu iigu nagaado nanaabinaya nawaaley idega nuglo anuu iigu nagaado nanaabinaya nawaaley idega nuglo again.